هذه مرت مخلتها يخلى على ربنا ما حد شغال عن واحد بسم الله. ugu horeysa waxaan ku mahadceliyo bahada warbaahinta kala duwan gudaha iyo dibadda ee halkan isugu yimid si ay uga gudbiyaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto aad iyo aad baan idin salaamayaa waa leeyahay mahadcelin intaa kadib waxaynu joognaa afsiyoon santa waxaynu maanta rabaa halkan inaan dadweynaha Soomaaliyeed kula wadaago shirkii maanta ka furmay afsiyoon santa maanta oo isniina 22 maarso 2021 shirka oo u dhaxeeyay madaxda dowladda federaalka oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir oo maanta halkan ku kulmay waxaa ujeedadiisu ahayd si aan baqaadista sidii loo hirgelin lahaa heshiisyadii 17 Sebtembar ee Muqdisho iyo 16 Febraayo 2021 ee baydhabo guddiga farsamada ay soo diyaariyeen waxaa ka soo qayb galay dhammaan qaybihii la casuumay ee madaxweynuhu casuumay marka laga reebo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo madaxdooda ah intii kale haday tahay madaxda dowladda federaalka iyo haday tahay madaxda madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo gobolka banaadir dhamaantood way wada joogeen iyagoo diyaar u ah sidii loo adeegi lahaa heshiisyadii hore loona aadi lahaa dalka doorasho waadi lahaa shirku wuxuu ku furmay hordhac iyo barbilow fiican madaxdu waxay bilaabeen 9 subaxnimo hadda ayuu soo dhamaaday waxaana lagaga hadlayay waxa la yiraahdaa ice break in marka hore la isqalbi xaadho oo la wada hadlo oo si loo gudagabo ajandaha oo ah eedida heshiisyadii 17 Sebtembar iyo 16 Febraayo shirku wuu sii socon doonaa wuu furmay maanta waa jasoni waa furitaan wuu sii socon doonaa waxaanu ugu baaqaynaa oo aanu filaynaa rajaynaynaa madaxda ka maqan shirka aan maanta imanin inay ka soo qayb gali doonaan insha Allah taala hadii la kala gobrito si shirku halka inooga sii socdo dalkana uu aado doorasho arrimihii inaga qabyada ahaana ay noo dhamaystirmaan qof walibana isteedkiisa aado si uu kursigiisii doorashadeedii uga qayb qaato intaasaa maanta halkan ka dhacday sababtaan idiin brief garayna idinku yeernayna waxay tahay in aad ogaataan sidii shirku ku furmay iyo arrimihii lagaga wada hadlay iyo inuu sii socon doono aad iyo aad baa mahadsantihiin dhowr su'aalood oo ay saacad wasiir waa VOA Cabdulqaadir okay marka laga hadlayo shirkan halkan ka furmaya maanta
saxaafaddu waxay timid waqti hore goobjoog ay ahayd mana jirin meel saxaafaddu ay aragtay ama shir lagu furay marka laga yimaado in madaxdu howl gooban ay galeen ay muddo joogeen kadibna ay hadda ka tageen marka shirku xaguu ka furmay su-aasha koowaad su-aasha labaad saxaafaduna way badan tahay ajandaha madaxdeen baan malaynaya ajenda lala wadaagay saxaafadda ma jirin ajandaha waan idinla wadaagi doonaa waana ilaa xalay waxaan rajaynayaa in la sheergaraynayo waxaa ku qornaa qaybta hore waa waxa la yidhaahdo trust building iyo ice breaking luqadda qalaad waxa weeye in laysu soo dhowaado oo la iscaloo xadho oo la wada hadlo inta aan shirweynaha iyo howlka la tegin qaybtii koowaad ee ajandaha dhammaan dhinacyadii isku soo dhawaan lahaa والله سوف تكلم مع مدحوينه إلا ساك هلك جوتين مدحوينه محمد عبد الله فرماجو هل ساك سديت يوم أيو هذا الشركة كسر قبل إذا نوى وقتي من نوى وقتنا شعب كسر شركة رجع دي مراحل الشركة كسر قبل وياه ما لقى يا رصيد حتى مع الشركة لو قرشي يزبدل في ما دام ما أنت مراحل كذا قبل بوتر نجيب لنا كبار جوجشي مدحوينه في الدنيا وفي سنتين أفسيوني سنتر بيت هلا مراحل أوردر مويتمي مركز لقى غيابه labada madaxweyne waxaan rajaynaynaa boqolkiiba boqol inay ka soo qayb galaan si dalkani waxaanu rabnaa ujeedadeena oo dhan heshiiskii waynu haysanaa labadii heshiis waynu haysanaa wax inaga qabyahay ma jiraan waxaan rabnaa in aan firimbiga siiriga yeelano si aan doorasho waadno madaxduna ay ayidaan oo ay ku dhuftaan tiimbarada in dalkii doorasho aaday waxaan rajaynayaa in shirku inoo sii socon doono wasiir waa mahadsantahay waa Faadumo Cabdulqaadir maadaama madaxda Puntland iyo Jubbaland la sugaya caqabadaha ugu waaweyn ee maanta shirku ku baaqay shirku ma baaqanin ayaga sababta ugu baaqay maya shirku wuu socdaa si fiican baan ugu socdaa waanu sii socon doonaa aad iyo aad u mahadsantahay Thank you.